aad baan idin salaamayaa magacaygu Cabdalla Kaniya waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago fariin kooban oo aan doonay inaan ku dhiirigeliyo dhalinyarada badan baa ka fikirta qaabka ay shaqo u abuuri lahayd oo jaamacada ka soo qalan jibiyay oo college ka soo qalan jibiyay qaarkood degree haysta qaarkoodna masters haysta sanad kastana sida caadiga ah arday badan baa jaamacadaha ka soo baxa kuwaas oo inta badan lagu arko maqaaxiyaha iyo goobaha fadhi ku dirarka haddaba waxaan kaliya baraarujin lahaa in ay jiraan waxyaalo badan oo qofku uu hal abuur ka samaysan karayo oo nafsadiisana uu kuma horumarin karayo iskuna mashquulin karayo kagana maarmi karayo inuu fadhi ku dirar iyo maqaaxiya uu la fadhiyo cilmigii uu soo yani intaasoo sano soo baranayay xusuusnow waalid iyo walaal baa kugu soo tabcay waqti ku soo geliyay qarash ku soo geliyay lagaba yaabay hooyo inay ku soo anihi barbaarisay ku soo korisay waxbarashadaada inay qayb lixaad ka qaadatay waxay qayb lixaad uga qaadanaysana ay ahayd agab yar ay bacad ay la fadhiday oo ku soo shaqeynaysay muddooyin sanado fara badan ah inaad adigu ogeyd inaad adigu ogeyn bulshadena Soomaaliyeedna waxay u badan tahay danyartaas oo kale marka bulshada dhalinyarada waxaan ku baraarujin lahaa shaqadii waalidka ay kugu soo koriyeen kugu soo barbaariyeen wax kugu soo bareen cilmigii iyo macnaha iyo aqoontii aad ay ku galiyeen oo qarashkii ay ku galiyeen cilmiga aqoonta aad ka faa'iiday inaad maqaaxi aad la fadhida adigoo iskala weyn wixii hooyada ama aabaha kugu soo barbaariyay horta waa nasiib darro aad u weyn marka baraarujinteedu waxa weeye inaad hareerahaaga eegto anihi aad ka fikirto waxaad adigu qaban karto tusaale ahaan maalin kasta markaad soo baxdo aad banaanka timaado aad soo labisato waxaad ka fikirtaa wadadii aad soo martay boorka kabahaaga ku dhacay halkii aad ku nadiifsan lahayd waxa laga yaabaa in teerada aad ku baalishaysan lahayd in cid kale aad ka soo qaado adigu aadan kasbanin baalishka kabahaaga aad ku nadiifinayso nin asaaga ayaad hoos dhigaysaa adigu shaqada aad ku liidayso laakiin isagu lacag adigu ka sameeyo wala fiirso marka dhinaca kale oo eegto waxaad arkaysaa dhalinyaro fadlan baran oo asaaga hadii adigu aad ka sadroonto ka wanaagsanaato fursad Ilaahay u siiyay waalidiinta inay shaqooyin hanti ay wanaagsan ay haystaan balse asaagaaga kalaasku kula fadhiyo shaqo caynkaas oo kale ama wax badan aan dhaamin bay waalidiintood hayaan waa halka sirtu ku jirta waxa way qof walba inuu macnaha u istaago inuu nafsadiisa kaafiyo ehelkiisa kaafiyo bulshadiisana wax ku soo celiyo muhiim ma aha inaad xafiis fadhido muhiim ma inaad shaqo weyn oo heer sare hayso muhiimna ma aha aqoontii aad baratay inaad ku shaqeyso waxaaba dhacdaba aqoon-yahanin fara badan aqoontii ay soo barteen xirfadii ay waqti badan ku soo bixiyeen inaysan ku shaqeysanba waxa kale oo dhacda niman jaamacadba soo gelinba oo aqoon-yahan oo aqoontiisa maalaha ninka biraha tuma ee farsamo yaqaanka ah iyo kabaha tola labada waxay u baahan yihiin inay cilmigaas jaamacad iyo aqoon ay ka helaan macnaha cidda markaas oo kale ka faa'iideysan karaan laakiin bificlan bulshadeena Soomaaliyeed aqoon-yahanintaas kabahan torsha ama kuwa biraha sameeya iyo mindiyaha iyo kuwa kale oo la halmaala oo aqoon-yahanin iyo niman warshadaha dadka ka shaqeeyo kala u dhigma aqoontoodu ugu jaamacad uma soo gelin waxaad halka ka dareemaysaa inaadan u baahnayn aqoontii aad soo baratay inaysan macnaha aysan marnaba khasab ahayn inaad ku shaqeyso waxa suuragal ah cilmiga aad baranaysay cilmi ka wanaagsan oo adiga gudahaaga ku jira inuu jiraba baraarujinteedu waxa weeye in dhalinyarada aysan isdhigan tacabkii lagu galiyay inaadan khasaarin aad mar walba ka fikirto inaad noqoto qof wax soo saar leh waqtiga subaxii markaad soo toosto adigu kugu socda cimrigaagii baad cunaysaa ogowna qof weyn oo kugu soo halgamay oo waqti badan ku soo galiyay ayaad niyad jibinaysaa hadaba adduunkan laguma keenin inaad iska noolaato waxa lagu keenay inaad ku noolaato nolol wanaagsan oo qurux badan leh adduunyadaada inaad ugu noolaato uguna shaqeysato aakhiradaada aad baan idin salaamayaa